waxa isa soo taraya falcelinta iyo mas'uuliyiinta sida cad uga hor imaanaysa hanaanka doorashooyinka soo socda ay qorshaysay dowladda federaalka Soomaaliya sanada soo socota ee 2026 sidoo kale waxa isa soo taraya dhaliilaha loo jeedinayo safarada madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa sababaha ay uga hor imaanayaan doorashada ay dowladda federaalka Soomaaliya u qorshaysay inay dhacdo iyo hanaanka doorashooyinka soo socda qaabka ay u dhacayaan waxa ay cuskariyaan mas'uuliyiintan iyo sababaha ay u dhaliilayaan hanaanka doorashooyinka soo socda Senator Cabdi Qaydiid ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta sida cad u diiday hanaanka doorashada qof iyo codka kaas oo ay dowladda federaalka Soomaaliya soo jeedisay in laga dhaqan gelin doono Soomaaliya sanada soo socota ee 2026 dowlad goboleedka Galmudug waxa ka dhici doonta oo kaliya doorasho qaran oo lagu heshiiyay daneeyaasha dowlad goboleedka Galmudug ayaa si wada jir ah u arisan doona arrinkan ayuu yiri Senator Cabdi Qaydiid sidoo kale Senator Cabdi Qaydiid ayaa si cad u dhaliilay socdaalada joogtada ah ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tago dibadda ma haboonay muddo gaaban gudaheed dhowr dal uu safro madaxweynaha wuxuu ugu baaqayaa labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya inay feejignaadaan oo ay u kuurgalaan jidka qaldan ee ay Soomaaliya cagta saartay sidoo kalena uu ku hogaaminayo madaxweynaha haatan talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud Senator Cabdi Qaydiid oo hore u soo noqday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ah senatarkii ugu horeeyay ee si cad ugu soo horjeestay hanaanka doorashada ee muranka dhaliyay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay hanaankan ka dhaqan gelin doonto qaybo kamid ah dalka iyadoo laga reebay dowlad goboleedka Puntland oo ah maamul goboleedkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay Soomaaliya sanadii 1998 hadalka Cabdi Qaydiid ayaa imaanaya iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay wax walba u sameynayso sidii ay doorashadan u dhici lahayd oo ay ku jirto kordhinta muddo xileedka hogaamiyayaasha dowlad goboleedyada taasi oo ay ku tilmaantay talaabo laga maarmaan u ah horumarinta dib u habeynta doorashooyinka iyo u gudbidda nidaamka doorasho qof iyo cod ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay in muddo kordhintan oo lagu soo afmeeray shirkii ugu dambeeyay ee golaha wadatashiga qaran ay qayb ka tahay qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ee isku aadinta jadwalka siyaasadeed ee dalka si doorashooyinka dhammaan heerkooda kala duwan hal mar loo wada qabto muddo kordhintan waa talaabo lama huraan ah oo lagu weecanayo hanaanka doorashada ee dadban kaas oo ku saleysan nidaamka beelaha isla markaana aan ku dhaqmaynin muddo haatan laga joogo 7 sano ayuu yiri Mudane Jaamac hadalkan uu ku sheegay wariyaalka howlgal magaalada Muqdisho siyaasiyiintan ka soo horjeeda hanaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay u wada doorashooyinka soo socda ayaa waliba walaac xoogan ku muujiyay waqtiga loo qabtay iyagoo ku adkaystay in khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada kuwaas oo aan xal rasmi ah laga gaarin ay sababi karaan dib u dhac kale ama xitaa inay huri karaan colaado hor leh